مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. laba arrimood waxay anfacayaan qof kasta oo mu'min ah: dabeecad wanaagga iyo deeqsinimada. laba arrimoodna waxa ay kor yeelaan arrinka qofka mu'minka ah: isdhuldhigga ama tawaaduca iyo wax ka qabashada baahiyaha dadka. laba arrimoodna waxa ay qofka mu'minka ka ilaaliyaan balaayooyinka iyo masaa'ibta: waa sadaqada iyo xiriirinta raximka. waxaa la weydiiyey, waa ayo kuwa cayrta ah? waxa uu yidhi, cayrtu waa 3. eygu ugaarta isagaa daba orda oo soo qabta, wixii uu soo qabtayna qof kalaa ka qaata. bakhiilkuna maal buu ururiyaa, maalkaasna waxaa qaata dad kale. xanlowguna wuxuu xantaa dadka, xasanaadkiisana iyagaa ka qaata. 4 qaacido oo ay habboon tahay inaad ka dhigato aasaaska noloshaada. si aad dadka u raaligeliso awgeed ha isbadbedeli. si aad u cajabageliso awgeedna marba midab ha isu yeelin. fashal kugu dhacay awgiisna ha isu bedelin. guul aad gaartay awgeedna ha ku kibrin. arsaaqda ugu wanaagsan ma aha midda maalka, laakiin arsaaqda ugu wanaagsan waa deganaanta ruuxda, nuurka caqliga, caafimaadka jirka, qalbiga nadiifka ah, fikirka saliimka ah, duco hooyo, naxariis aabbo, walaal ku garab taagan, dhoolla-caddaynta ilmahaaga, saaxiibku daryeela, iyo duco qof allaah dartiis kuu jecel. waxaad la saaxiibtaa dadka saalixiinta ah, maxaa yeelay markaad ka maqan tahay way ku tabayaan, marka aad wax hilmaantana way ku baraarujinayaan, marka ay naftooda u ducaysanayaanna kuma ilaawayaan. waa sida xidigaha oo kale, haddii doontaadu ay ku dhex wareerto badda nolosha way ku hagayaan, berrina carshiga eebba hoostiisa ayay kugu sugayaan. ma waanay kugu filnayn in ay allaah dartiis ku jecel yihiin? kalluunkii aan afkiisa xiran qof jilaabanayaa ma lahan. xidh afkaaga, waayo qaar badan oo waxaa jira aad u doondoonaya in ay khaladaadkaaga ugaarsadaan. waxaad noqotaa sida roobka oo kale, kaasoo meeshuu ku dhibcaba anfaca. ha odhanin adduunyadii baa ii dhabar jeedisay. waxaa dhici karta in adigu aad tahay kan sida khaladkaa u fadhiya. xigmad midda ugu wanaagsan waa tii uu wariyey ibnu jawsi raximahullahu tacaala: dhibaatada daacadu way tegaysaa, waxaana haraya ajarkeeda. macaanka macaasiduna wuu tegayaa, waxaase haraya ciqaabkeeda. ninbaa saaxiibkiis ku yidhi, isagoo ku fekeraya qasriyada quruxda badan: saaxiibow, xaggee baynu jirna markii xoolahan iyo adduunkan la qaybinayay? saaxiibkii su-aasha weydiiyey ayuu inta soo kaxeeyey wuxuu keenay isbitaalka. markaasuu wuxuu ku yidhi, oo adigu xaggee baan jirnay markii xanuunadan la qaybinayay? haddaba allah u mahadceli xaalad kasta oo aad ku jirto iyo waqti walba. allah mahad iska leh nimcooyinka iyo fadligiisa uuna siiye awgeed. haddii dhibaatada dunida aad ku daasho, ha murugoon. waxaa dhici karta in allaah uu jecel yahay inuu maqlo codkaaga adigoo isaga baryahay. ha sugin liibaanta ilaa iyo inta ay ka dhoolla caddaynayso, laakiin adigu dhoolla caddee si aad u noqoto mid liibaanay. maxaad fakarka dheer u galaysaa iyadoo allaah uu yahay kan wax walba dabara? maxaadse wax kaa qarsoon aad uga welwelsan tahay iyadoo shay walba allaah agtiisa ka yahay mid la og yahay? sidaa awgeed xasil oo daranna u deg. allah ayaa ku ilaalinaya. qalbigaagana ka dheh ka hor inta aadan carabka ka odhan, arrinkayga oo dhan allaah ayaan u dhigtay. naxariista allah kadib ma garanayno waxaa jannadana gelinaya. ma ragcad aan tukannayba? ma sadoqa aan la baxnayba? ma biyo aan qof waraabinayba? xaajo qof mu'min aan u gudnayba? ma ducaa mise waa xuska allah? shaqee oo ha yaraysan waxa aad samaynayso. waxaan allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa in uu dhammaanteenba na xifdiyo, daacadiisana uu nagu hanuuniyo. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. كم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان